inaan idinkaga sheego shirkii ay isugu yimaadeen wasaaradaha waxbarashada dowladda federaalka iyo dowlad goboleedyada iyo gobolka Banaadir kulankii ay ku lahaayeen oo u socday labadii maalmood oo ahaa shirkii 3 bilood la ahaa oo lagu qaban jiray dowlad goboleedyada bishii Abriil waxaa lagu qabtay Dhuusamareeb kulankan hadda waa kii saddexaad kii koowaad waxaa lagu qabtay gobolka Banaadir magaalada Muqdisho kii labaad waxaa lagu qabtay magaalada Dhuusamareeb dowlad goboleedka Galmudug kan waa kii saddexaad oo lagu qabtay maanta magaalada Baydhabo lagu soo gabagabay magaalada Baydhabo oo dowladda koonfur galbeed ay martigelisay waxaan aad ugu faraxsanahay inuu shirkan ku dhamaaday si guul ah oo ku socday 2 maalmood qodobo fara badan oo wada hadlay kulankan oo ay si gaar ah u martigelisay wasaaradda waxbarashada dowlad goboleedka koonfur galbeed ee Soomaaliya oo ka dhacay caasimadda gobol gaarka koonfur galbeed Baydhabo 13 ilaa 15 bisha Luulyo warmurtiyeedka laga soo saaray daan idin dulmar qodobadii waxaa ka mid ahaa marka hore kulanka waxaa si rasmi ah u daafuray kusimaha madaxweynaha ahna wasiirka wasaaradda beeraha ee dowlad goboleedka koonfur galbeed Soomaaliya mudane Maxamed Xasan Fiqi iyo wasiirka waxbarashada xukuumadda federaalka mudane Cabdiraxmaan Daahir Cusmaan qodobada warmurtiyeedka oo faahfaahsan waxyaabaha looga hadlay waxay in la dhameystiro diiwaangelinta dhammaan dugsiyada iyo goobaha waxbarashada dalka qodobkan wuxuu ahaa qodob la bilaabay kulankii hore oo ahayd in la diiwaangeliyo dhammaan dugsiyada iyo goobaha waxbarashada dalka hadda waxaa lagu sheegay in la dhameystiro diiwaangelinta dhammaan dugsiyada iyo goobaha waxbarashada dalka waxaa la sameyn doonaa habraac hufan oo si wadajir ah loo dhaqangelin doono kaas oo horseedaya in nidaam isku mid ah oo lagu diiwaangelinayo goobaha waxbarashada laga hirgeliyo dhammaan dowladgoboleedyada dalka diiwaangelinta goobaha waxbarashada waxaa la dhameystiri doonaa 3 bisha Agost ee sanad dugsiyeedka 2018-19 qodobada waxaa kaloo ka mid ah hirgelinta buugaagta manhajka cusub ee dugsiga hoose waxaa la isla meel dhigay in sanad dugsiyeedkan 2018-19 si buuxda loo hirgeliyo buugaagta manhajka cusub ee fasalada 1 ilaa 4 dhammaan dugsiyada dalka hore ayaa waxaa looga hadlay in la soo saaray manhajkii waxaa la isku raacay shirkii Dhuusamareeb in la hirgeliyo manhajka hadda waxaa ku xigtay tallaabada kale ah in la hirgeliyo buugaagtii oo dhameystiran oo fasalka 1 ilaa 4 ah in la hirgeliyo dhammaan mas'uuliyiintana way isku raaceen in waxyaabaha kale oo laga hadlay waxay in madbacadii daabacday buugaagta iyo wasaaradaha waxbarashada xukuumadda federaalka iyo dowlad goboleedyada iyo gobolka Banaadir ay ka wada shaqeeyaan sidii buugaagta loo gaarsiin lahaa dhammaan dugsiyada dalka in macallimiinta dugsiyada hoose lagu tababaro manhajka cusub qodobka kale oo laga hadlay wuxuu ahaa qodobka macallimiinta oo ahaa tayeynta waxbarashada macallimiinta waxaa la sameeyay in howlaha macallimiinta cusub ee 300 ah ee lagu darayo mushaharka dowladda la soo dhameystiro lana soo gudbiyo macluumaadkooda ugu dambeyn 20 bisha Luulyo sida laga warqabo dowladda federaalka waxay budgetka sanadkan ku dartay 300 macallin oo cusub oo mushaharkooda noqon doono ilaa $300 konton ayaa afarta dowlad goboleed loo kala qaybiyay 100 waxaa la siiyay gobolka Banaadir marka in la dhameystiro kuwa gobolka Banaadir nidaamkoodii ugu dhamaaday liiskii waa diyaar kuwa gobolada waxaan rajeynaynaa ilaa iyo bisha 20 bisha Luulyo in liiska la soo gudbiyo la dhameystiro arrinta kale oo laga hadlay waxay ahayd arrinta deeqaha waxbarashada waxaa la isku raacay in deeqaha waxbarashada lagu qaybiyo hannaan cadaalad ah oo loo siman yahay arrimaha deeqaha waxbarashada oo soo jeedin kala duwan la soo bandhigay waxaa si gaar ah loogu falanqeyn doonaa shirka Oktoobar 2018 ee ka dhici doono magaalada Kismaayo ayaa shirkan ku xiga ka dhici doona taas ayaana si fiican loogu sii falanqeyn doonaa maadaama deeqihii waxbarashada ay aad u soo kordhi doonaan waqtiga iskuulka la furay ilaa iyo bisha September laga bilaabo waxaa kaloo laga hadlay mashaariicda waxbarashada waxaa la isku raacay in mashaariicda waxbarashada ee ay bixiyaan deeq bixiyaasha taageera Soomaaliya la soo marsiiyo wasaaradda waxbarashada federaalka
waxaana ka wada tashanaya wasaaradda waxbarashada heer federaal dhammaan wasaaradaha waxbarashada dowladyada iyo gobolka banaadir iyadoo loo qaybsanayo si cadaalad ah oo siman isla markaana ku salaysan baahida kala duwan ee dalka arrintan mashaariicda aad ayaa loogu dheeraaday waxaan loo kala saaray dhowr qodob mashaariicdu hadda deeq-bixiyaashu mararka qaarkood waxay sameeyaan si parallel ah ayay waxay u kala qaybiyaan waddanka qaybo waxaa lagu heshiiyey marka in wax kasta oo deeqa oo waxbarasho ku saabsan oo loogu talagalay Soomaaliya in la soo marsiiyo dowladda federaalka iyo dowladaha oo qayb oo xubnaha ka ah inay ka wada tashadaan sidii loo qaybin lahaa deeqahaas iyo gobolka banaadir iyadoo loo fiirinayo cadaaladda iyo iyadoo loo fiirinayo baahiyaha gaarka ee ka jira dalka intaas kadib waxaan u mahad celinaynaa golaha wuxuu u mahad celinayaa shacabka iyo dowlad goboleedka koonfur galbeed ee Soomaaliya gaar ahaan howlwadeennada wasaaradda waxbarashada waxaan aad iyo aad ugu mahad celinaynaa dowlad goboleedka koonfur galbeed gaar ahaan wasaaradda waxbarashada iyo shacabka koonfur galbeed iyo shacabka magaalada Baydhabo runtii oo si wanaagsan loogu soo dhaweeyay halkan aad baan ugu mahad celinaynaa. Assalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatuh.